بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، درسigoo iska kooban oo lagu tilmaamayo أعياد الكفار وقفات وأحكام cinwaankii laysoo gudbiyey. si guud ahaana ciiddu waa magac sheegaya kulan soo noqnoqonaya, ama mid sannadeed ha noqdo, ama mid bileed ha noqdo, ama mid isbuuciya ha noqde, oo ciidaha qaar baa ah isbuuc kastaba. مثلا ciidda jimcahoo kale oo isbuuc kasta, ciidaha qaarna waa sanadkii. su-aasha isweydiinta le waxa weeyaane dadku hadda iskaga qasantay gaalka maxaa laga qaadan karaa, maxaanse laga qaadanayn. gaalku waa qof bini aadama oo diin kala haystaa. maxaa bannaan in laga qaato, maxaanse bannaanayn in laga qaato. waxaa bannaan wixii manfac ku jiro ee sharciga ku bannaan, aqoonta maadiga ah oo kale iyo wixii la mida. ma bannaana wixii diin iyo dhaqan ku saabsan ee cid gaara ay leedahay in gaalo laga soo qaato. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ummadda dambe inay fasaadi doonto, oo wuxuu nebigu tilmaamayaa لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. dadka muslimiinta ah ilaahay wuxuu ina faray salaad kasta inaynu ku ducaysanno akhrino faatixada. faatixada ducada ugu weynaa inuu ilaahay weydiisanaynaa waxa weeyaan ihdina الصiraaط الmustaqiim صiraaط aladiina أncamta calayhim غayr الmaqduubi calayhim wala الضaaliin. ilahay waxaynu weydiisanaynaa jidka qumana inuu inagu hanuuniyo, jidkii nebiyadii iyo saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa mareen, in rabbi inaga ilaaliyo jidka kuwa lumay iyo kuwa rabbi u cadhaysan yihi. axaadiistuna waxay ku tilmaamaysaa qolada rabbi u cadhoodayna inay yuhuud tahay, qolada luntayna inay nasaaro tahay, iyadoo taasi ay qaacidada caamka ah tahay oo qofka muslimka ahi maalin kasta 5 salaadood oo qura hadduu tukado 7 goor oo ilaahay ka magan gelayo jidka qoladaa inuu maro, ayuu haddana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, kuwii idinka horreeyey waddaday mareen taakataakiya dhudhudhudhub baa u raaci doontaan, oo hadday god masalugalay ama masacagalay galaanna waa ka dabagelaysaan buu nebigu yidhi. waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo ma yuhuud iyo nasaara, yacni saxaabada way qaadan kari waayeen iyagoo ilaahay maalin kasta ka magan gelaya jidkooda, haddana in la yidhahdo jidkooda raaci doontaan. waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo ma yuhuud iyo nasaara. nebigu wuxuu ku yidhi faman, yaa kale. xadiiskaa saxiixaynka ku yaalla. dadku waxay isweydiinayaan krismaska in la xafladeeya ma bannaan tahay, in la tahnadeeya ma bannaan tahay, in laga qayb qaataa ma bannaan tahay, in la dhigtaa ma bannaan tahay. intaynan ma bannaanta iyo ma bannaano ka warramin aan isweydiinay muxuu krismasku yahay. krismas, krist waa mukhallis, nebi ciise uga jeeda, waa savior. masna oo maqطaca labaada iyana macnaheedu waa miilaad. christmas waa miilaad اlmasiix aw miilaad اlmukhallas, mukhallaskii goortuu dhintay, goortuu dhashay. ciidaha nimanka kristanka ahi ama masiixiyiinta ahi say bugaagtooda ku qoraan 140 ciidood bay ka badan yihiin. 140 maalmoodoo celebrations la sameeyo.
afariyo toban baa ugu waaweyn afariyo tobankaa toddoba ugu sii waaweyn toddobada waaweyn maxaa ka mida markaa labadan had iyo goor dadku ka hadlaan ee ah Christmaska iyo Easterka mid waxay leeyihiin waa maalintuu ciise dhashay midna iyagu siday qabaan waa maalintii la dilay su-aasha isweydiinta leh waxay tahay markaa ma la garanayaa horta maalintuu ciise dhashay ma loo dabaaldegi karaa hadda mayso maalin la garanaya ma tahay Bible-ku haba yaraatee birthday-ga waxba kama sheegin ciise qoliyaha qaarkood baa waxay yidhaahdaan ciise wuxuu dhashay sida luuq ku qoran ciise wuxuu dhashay maalin yacni wakhti ay qoladii adhiga raacday habeenkii markay adhiga soo xareeyeen ay warka maqleen waxaa macruufa bay yidhaahdaan falastiin winterka inaan habeenkii adhiga dibadda lagu haynin winterku waa wakhti dhaxaneed marka wakhtigaasi winter ma noqon kara bay u deliishadaan waa halka sheekha diidaatana uu isna ka deliishado timirtii maryan la yidhi ruux timirtu goormay bislaataa waxaa la yaqaanaa inay samarka bislaato xagaaga kulaylka ku bislaataa maadaama timir la yidhi geedkaa timirtaa rutab uu ka soo daadanayo winterka rutab ma jiro haddii la yidhahdo December rutab ma jiro haddaba xagguu ka yimi qoraayadii hore ee qarnigii labaad iyo saddexaad ee wakhtigaa ciise loo nisbaynayo dhalashadiisa ka dambeeyey haba yaraatee wax dhalashada ciise la yidhaahdo kama hadin marka la eego kutubtoodu inta badan dhimashadiisa waxay ku sheegaan iyo crucifixionka ayay ka warantaa laakiin kama waranto dhalashada in badan Alexandria origin of Alexandria nin la odhan jiray oo noolaa qarnigii labaad saddexaad ayaa wuxuu ku sheegayay celebrationska birthday-ga la yidhaahdaa inuu yahay pagan in loo dabaaldego maalinta dhalashadu waa diinta wathaniyiinta iyo baaganimada buu leeyahay waa nin masiixi ah oo qarnigii labaad ama saddexaad nool wuxuu leeyahay dabaaldegga la sameeyo ee ku saabsiisan birthday wax la yidhaahdo waa paganiska dhaqankoodii buu leeyahay taa macnaheedu waxa weeyaan wakhtigaa meeshaa ninkaasi joogay inaan Christmas iyo wax loo dabaaldegiyo waxaasi toona ka jirin sida la og yahay qarnigii labaad ee kristanadii noolaa may dabaaldegi jirin walidaalika baa nin qoraaya oo Clement of Alexandria wadaad la yidhaahdo wadaadadooda ka midi ayaa wuxuu leeyahay ciise dhalashadiisa dawaa'ifta kooxaha kristanka ee kala nooca ahi waxay soo propose gareen waxay soo bandhigeen buu leeyahay maalmo kala gedisan waxyaabaha cajabta lena waxaa ka mid ah maalmaha 25 December marnaba kuma jirtaba waa maalmo kale maalmo ay kristanku isku haystaan goormuu dhashay Clement qoraagiisa waxa uu ku tilmaamayaa qola waxay yidhaahdeen sanadkii 28 ee Augustus bishii Bakhal la yidhaahdo 25keeda oo u dhiganta May 20 buu dhashay bay leeyihiin sanadkana 28 bay ka dhigeen Augustus wakhtigiisii qola kale waxay yidhaahdeen 28 kaba ma ahayne iyo wakhtiga Augustus toone waa 16kii Tiberius wakhtiga la yidhaahdo ninka la yidhaahdo wakhtigiisii waxaana yidhaahdeen wuxuu ciise dhashay 22kii Abriil qolo kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 15kii Abriil qolo kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 20kii Abriil idan wakhtiyada casriga ay sheegayeen oo dhan waa Abriil iyo May iyo March wax December iyo meesha tani kuma jiraan waxay isku hayaan nabi ciise ma March buu dhashay mise Abriil buu dhashay mise May buu dhashay taariikha kala gedisan bay tilmaamayaan qarnigii afraad ayay soo bilaabantay oo ay caan noqotay waxaan loo yaqaano 25 December iyo 60 June ee
January la sheego kiniisada kristanku qarna 25 kay u dabaaldegaan orthodox waa catholic iyo wixii raacsiisan ka dambeeya orthodox-kuna waxay u dabaaldegaan 6 January saadaradeed kiniisada barigu January 6 bay dabaaldegaan kiniisada galbeedkuna 25 kay dabaaldegaan January 6 waxay kala ku beegan tahay يوم التعميد maalinta ay aadka u weynayeen ay leeyihiin ciise biyaha la geliyo laga soo saaray oo tacmiidka loo sameeyay bay ku beegantay marka 25ka December laga soo bilaabo ilaa 6 January 12 maalmoodba qaar baa dabaaldega wada siday ku timi marka haddii aynu leenahay taariikhdii hore lagu bahayo maalintu dhashay qoraayadii hore kuway qoreen waxay sheegayaan inay ama April ahayd ama May ahayd ama March ahayd xagay ka timi hadda December tan iyo January tani laba theory baa jira oo ay qoraan labada theory mid baa aad u caansan ka aadka u caansan wuxuu sheegayaa 25ka December diilnaawayaashii Scandinavian-ka ku noolaan jiray waxay u dabaaldegi jireen wax yuulka la yiraahdo Jarmalka iyo kuwaasina waxay u dabaaldegi jireen Saturnalia wax la yiraahdo ilaaha cadceedda iyo ilaaha beeraha baa loo dabaaldegi jiray qolana waa ilaaha beerta god of agriculture qolana waa ilaaha cadceedda ama se cadceedda loo dabaaldegayay inay soo noqoto waa waqtigii 25 December waa waqtigii qaybahaasi madowga galaan ee maalintu yaraatay habeenku bato marka waxa la weydiisanayaa inuu soo noqoto cadceeddaas kaasi waa theory-ga ugu badan waxay leeyihiin oo hadda maalin gaaleed bay ahayde wadaadadii hore kristankana waaba kuwa maagay celebrationska birthday oo dhane maxay kuwan dambe u aqbaleen waxay yiraahdeen waxa loo aqbalay maalmihii markay kristanka qaateen bay yiraahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen aan maalinta bedeluno nidhaahno waa maalintii ciise dhashay oo shaqo kristan aan samayno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama cadceedda la caabudo ay wadeen أن كبدل عبادات مسيحية بيلاده قولنا كلنا وحي لايهين ما بيش ماي أما مارش أما مالمهنا نشيجينا مثلا شريعة لبعضك مارش وحكومة بيجي بيلايين مالنتي يوم التبشير كمالنتي هذا يوم عيد البشارة مالنتي جبريل ومريم وجب بشاريي إن الملصين أيوه waxay yiraahdaan maalinta ilaa iyo December marka la xisaabiyo waxa u dhaxaysa 9 bilood marka wuxuu maanu qiimeynay maalintii Jibriil uu yimi baa inta ahayd hadduu birthday-gi hadduu si caadi ah u dhashay inuu December dhalan karo theory-ga qolada theology-ga sheega laakiin inta badan ka caanka ma aha 6 ay isku hayaan 25 January ma 5 December ba mise 6 January na waxay u dhaxaysaa maalmaha ay ku muransan yihiin oo ah 6 April buu dhashay mise 25 March buu dhashay isla markaana crucifixion-ka iyo Eid al-Bisharo annunciation-ku waa isku waqti ayay iyagu qabaan maalintii loo bishaareeyay isla maalintaas la dilay isla maalintaas uu urgalay dabeetana waqtiga ka mudashay soo duduub waxaan leenahay ciise goor u dhashay cidi garan mayso oo haddaan goor u dhashay cidi garanayn maxaa loo dabaaldegaya waxyaabaha cajabta ah waxaa ka mid ah ee ciise ku saabsan qarnigii sagaalaad خلال القرن التاسع عشر نظام وحب لما بروتستانك قيبة كم دولة وبدعو كاتلق سمستي سيدا دراد ديوين من تعالى دبالدقي كنيسة كاثوليك أبا الرديدة يوسيت ربضيسي دقا الله دي إنجليز كده حمري وقتي يشيرين وحال ممنوعي إن لدبالدقا مالنتاس اسكتلاند كون 640 كيسيدي لو ممنوعي
1958 kii dhawaa baa la soo celiyey in December 25 dib loo dabaaldegi karo waddanka Maraykan mustawdanaadka Protestantiska radicalka haysan jireen 1659 iyo 1681 sida Boston iyo wixii la mid ah mamnuuc bay ahayd in 25 December la dabaaldego waxaanay u arkayeen inay tahay caado Ingiriis oo foolxun taariikhda markaynu dib ugu noqonno markaas masiixiyiintii noolaa waqtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caada wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego waxaa cajiiba markaa maharajaan katholigu ay sameeyaan waxa ku saabsan oo dhan qolyaha kale waxay u qabaan inaanay bannaanayn dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo waxbixintani xaggay ka timi waxbixintani waxay ka timi imbaraatoriyadii romanska ka horraysay tan December maadaama ay cibaadaadkooda samayn jireen waqtigaas ay wax bixin jireen kiniisadda kaatooligii waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen waqtigaas sadaqaadka la bixiyo 25 December iyo waxa kale wax la bixiyo bari dambe alquruun alwasطaya ayay ogolaadeen intii hore waxay lahayn waa caado wathaniya ayaan la bixinin waxa kaloo jira wadaad Christian Armenian oo Nicola la odhan jiray Nicola ayaa berigii dambe quruun alwasطa middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqa intuu la gudo ayuu dadka siin jiray mar dambe oo qarnigii 19aad baa nin shaacir oo Maraykani gabiyay dabeetana isagaa gabayga ku sameeyey ninkan maryaa cascasita ee garhka cad leh ee maryaa cad leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yidhaahdaa deeradu ay jiidayso ee carruurta intuu wax u qaybiya habeenkii meesha ka soo ridaa gabayaa Maraykan baa waa damba samaystay idan caado jirta maaha geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen idan caadaadka meesha lagu samaynayo dhami waa caado kuwii wathaniyiinta ee diinlaawayaashii hore ay samayn jireen haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo Christmasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badan oo ka mida ay leeyihiin waa ciid wathaniye ciid xataa ciise dhashay maaha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahy waqaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaani an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah buu ilaahay leeyahay allahu laxadu samad waxna dhalin layna dhalin waa ibeeniyaa oo wuxuu leeyahay isoo celin maayo iyadoo aan abuurkii hore abuurka dambe igaga adkay haddaba ayuha alxibba sharci ahaan markaan eegno ciidda waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin cibaadaadkay ku jirtaa sida manaasigta kale qiblada salaada soonka iyo wixii la mida ilaahayna wuxuu qur-aanku leeyay likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuun cid walba wakhti ayaanu u samaynay ay cibaadadooda la yimaadaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون حنا إلهي القرآن ككولي والذين لا يشهدون الزور كوا
xaadiraynin zuurka. mufasiriin badan baa waxay ku fasireen inay tahay ciidaha mushrikiinta. laa yashhaduuna bizuur haddii la yidhaho waa kuwaan markhaati beenaalaha sheegaynin, laakiin maadaama aan ba' lagu gudbin bay leeyihin waxay tilmaamaysaa inay tahay kuwa aan xaadirayna ka qaybgelaynin ciid gaaleeda ee nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa markuu yimi wuxuu arkay carabtii oo ciidaysa. waa maxay bay yidhi? waxay yidhaahdeen waa ciid aanu jaahiliyadeedii ciidi jirnay ansaartii. wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku beddelay mid idinka khayr badan. ciid aladxaa iyo ciid alfitri baa laydinku beddelay. caaisha waxay leedahay guriga ayuu soo galay abubakar ayaa noo soo galay iyadoo laba jaariyadood heesayaan ciiddii ciidala muslimiinta. walaysataa bimuqaniyatayn bay leedahay, laba heesana may ahayn. horta erayga hees markaa maqashaan inta badan dadka waxaa ku soo dhacaya muusigii iyo waxaan la tumayo iyo boodboodka in waxaan heestaa lama yidhaahdo. af soomaaliya hees haddaad maqasho waxaa la yidhaha hees tii xoolaa lagu raaci jiray, tii ceelka lagaga waraabin jiray, tii haanta lagu luli jiray, tii ilmaha yar loogu heesi jiray. hees af soomaaliga kuma jirto wax muusig la yidhaahda. muusigga gaalkuu la socday. bigilkii ugu horreeye la tumo, hindidii la socotay ingiriiskaa wadatay, cuudkii ugu horreeye la garaacana kuwii cadan ka yimi baa la yimi. dhaqan soomaaliyeed ma aha wax la tumaa. haddii laga maarmi waayo qolaa durbaan haysatay, haddii laga maarmi waayo, laakiin kuma jiro dhaqanka soomaalida waxaan la yidhaahdo. idan haddaad hees maqasho midhaha la tirinayaa laga warramaya af soomaaliga, midho wasni leh oo noocaasaa laga warramaya. caaisha waxay leedahay markaa labada hablood manay ahayn kuwa heesa. abubakar baa wuxuu yidhi abimazmuurin, sida riwaayadda muslim tilmaamayso. riwaayadda bukhaarina mazaamiir bay sheegaysaa. abimazmuuri الshayطaani fii beyti rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam. ma mizmaar shayطaan baa gurigii nebi maxamed jooga. wuxuu nebigu ku yidhi markaa maalin ciideedna waa hediya ababakar ina likulli qowmin ciida wahada ciiduna. idan muslimiintu laba maalmood oo ay farxaan oo hees qaataan oo ba u bannaan waa labada ciidood. ama waxa ka soo hadha ina likulli qowmin ciida wahada ciiduna buu nebigu yidhi. cid waliba ciid bay leedahay, maalin ay faraxdo boodbooddo bay leedahay. annaga ciidda iyadu waa tan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. walikullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja. nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama uu yidhi wahaadaa ciiduna, waxa ay sheegaysaa ta kale inaanay ciid u ahayn muslimiinta. xadiidkii hore aan tilmaamayna wuxuu nebigu tilmaamaya in allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma. waar ciidaha dadka kale kuwa ka khayr badan ayaa ilaahay idinku beddelay. in laga qayb gala daaye. in baa nebiga u yimi wuxuu yidhi waxaan ku nadiray buwaana meesha la yidhaahdo inaan geel ku qalo. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hal fiiha wathanun min awthaani aljaahiliya yucbad? sanam sanamadii jaahiliyadoo la caabudi jiray miyaa ku yaallay? qaaluu laa, maya bay yidhaahdeen. fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim buu nebigu yidhi, haddaama waxay ahayd meelay ku ciidaan? markaasaa la yidhi laa, maya. haddaanay labadaa midna ahayn buu nebigu yidhi nadrigaaga oofi. su-aasha isweydiinta le waxay tahay haddii watan jaahiliya uu meesha ku oli jiray lagu ciidi maayo, krismasku watan jaahiliyuu ahaan jiray. waa mar labaad. hadday ciid jaahiliyeed ahayd la samayn maayo, krismaskuna ciid jaahiliyeed buu ahaa. ciid dadka aan ilaahay rumaysnayna rumaysan awhaanta ciiddoodii bay ahayd. kristanku way kaga daydeenunoo way la qaateen. idan waa bidca ay kristankuna soo kordhiyeen, fi shariicana kuma bannaana. saa daraaddeed culammada muslimiinta waxay ku tilmaamayaan inaanay marnaba u bannaanayn dadka muslimiinta ah ciidaha diimaha kale inay ka qayb galaan.
christmasku imaa ciid kristan inuu noqdo hadduu noqon waayana ciid wathani buu noqday kuwa aan ilaahay caabudine wathaniyiina oo scandinavianka iyo jarmalka iyo aalihada kale caabudi jiray ciiddoodii ama ciiddii kuwii kristanka noqday ee nasaara labada ciidood midna ma bannaana diin ahaan inaynu ka qayb galno ciid wathanina ma bannaana ciid kristanna ma bannaana saa daraaddeed buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixayn ku yaalla naxnu alaakhiruuna alsaabiquuna yowma alqiyaama annagaa ah kuwii dembeeyey xagga wakhtiga marka laga eego horreeya maalinta qiyaama oo jannada ugu horgelaya xagga mansilada marka laga eego bayda annahum uutuu lkitaaba min qablina wa uutiinaahu min bacdi hase yeeshee buu nebigu leeyay iyaga kitaabka hortaayaa la siiyey annagana kadib baana la siiyey fahada yowmuhum aladii farada allahu calayhim faاkhtalafuu fiih waa jumcada buu nebigu leeyay ciiddoodii la siiyey isku khilaafeenay garan waayeen sabti iyo axaditoona may hayne jimcun baa ciida buu nebigu leeyay ilaahay baana nagu hanuuniyey faannaasu lana fiihi tabca dadku annaga ayay khadam iyo tabac noogu yihin oo nagu daba socdaan buu nebigu leeyay alyahuudu hadan wanasaara bacda hadin idan inaynu iyaga tabacu noqonnaa ma bannaana jumcadaa ciid inoo ah sabti inooma aha ciid aladxa iyo ciid alfitri baa ciid inoo ah kuwooda kale ciid inooma aha sidaa ogeed ayuha alaxiba gaala isjeclaysiintan iyo gaala kudayashada tani diinta kuma bannaana laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina awliyaءa min duuni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay ila an tattaquu minhum tuqaah waxaanu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninka dad isu ekaysiiya ee isugu ekaysiiya wax diinta aan ku bannaanayn waxa iyagu caan ku yihiin christmas iyagaabaa leh christ baabay u bixinayaan saad uga qayb gashaa waa diin saad diin kale ciiddeed u ciiddaa waa cibaada saad cibaado diin kale u samaysaa sidaa ogeed ayuha alaxiba nebigu wuxuu leh khaalifu lmushrikiin war mushrikiinta khilaafa waa caqiidada iyo diinta iyo shareecada iyo ku khilaafa acyaaddu waxay ka mid tahay waxa la isku khilaafsan yihi wuxuu nebigu ina leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam إiyaakum wamuxdiثaati اlumuur war waxaan idinka digayaa bidaca cusubay yimaadda faina sharu اlumuuri muxdathaatuha bidaca yimaadda kuwa waxa ugu sharka badan leh muxdadka waxa ahayd bidaca ka mida wa kullu muxdathatin bidca bidca kastaana muxdath shay kastoo la soo darriyeyna waa bidco haddii bidcada muslimku soo darreeyey xadiidka uu ka digayo bidcada kristanku keenay ka warran ilan 25 december waa bidca masiixiya waa awhaantay ka soo naqliyeena waa ibtidaaca iyagu la yimaadeen bidco muslim baan lagu oggolayn ama bidco kristan baa markaa lagu oggolaanaya waxaa aada hariib u ah marka dadka muslimiintaasaa isagaga darsameen maxaa xalaala iyo maxaa xaaraana waxaa la mida ciidaha kan new year baa la mida sanadka cusub sanadkan cusub ee januaridee la sheegayo ugu horayn julius wakhtigiisii baa loo dabaaldegay wakhtiga ugu horeeya waa 45 b c ee loo dabaaldego wakhtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin wakhti dambaa dib loo soo celiyey kalendarkani waa kalendar roman ah kalendar roman ah romanisku waa wathaniyiintii hore juliusna waa boqorkoodii waa ninka bishan julay la yidhaahdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyena augustus bisha augusta la yidhaahdo isku magacaabay bilaha kale qaybo ka midina waa ilaahiye magacyadood march waa ilaaha dagaalka ilaahulxarbi bay march yidhaahdaan
وإلهي مقعيدود قيبها الدنبنا واترو سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر سب وبشي تضباط أكت وبشي سديدات نوف وبشي سقالات دس وإنك ندس مالية وحاشقنا وبشي طبنات وهذا محل بيه طبنية كده محي سويد ويداريي بغردن باي سويد ويداريي شو لي يسبة تدبية لحدا مالبط حقه هركا قدري وجانويري فبراير كو صدر صدي كدب غريغوري بوبكي لودن جيري ايام جوليس وقتيسي بش سنه waxa la xisaabin jiray 356 iyo 0.24 waxa la ogaaday in xisaabtaas ay qaldantay qaladkaasi wuxuu keenayaa sanadkiiba dhowr minute 12 minute inay soo baxaan oo equinoxiska marka la xisaabiyo solar systemka inuu qaldan yahay saadaradeed ay waxay yiraahdeen hadda waxay xisaabiyaan ay hay 356 iyo 0.25 kun shan boqol iyo 280 markii la marayay ayuun baaba 10 maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yiri may saaka waa 14 Oktoobar khamiis oo bishu afar tahay jimcihi ku xigay ayuuma la yiri waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa ingiriiska diiday 200 sanadood in ku dhadhow buu diidanaa ingiriisku 1752 meelahaasi ayuu isna iska aqbalay marka isaga waqtigiiba uu ku sii kordhayo 12 maalmood buu isagu guuray meelahaasi ala kulli xaal waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay sanamadeedii waxeeda u baxsatay maxaad ula dabaaldegaysaa adiga kaaga xidhan maxaa ciid ka dhigay haba yaraatee ciidahaasi wax ay shariicada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina wardiinta wardiin dhamaystiray baa ilaahayna leeyahay muslimiinta dhibtana qabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen bulsho noocyad tiro badan isugu jirto diimo badan haysta may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tagi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen waxyaabo dadka aynu la wadaagi karnaa jira say culimada qaar badan qabaan مثلا ninka gaalka ah haddii ilmo u dhasho waa la tahniyadeyn karaa dhib maaha waqti aan ahayn Christmasyadii waxa kan waa la siin karaa maxaa la yiraahdaa hadiyad wa hadaaya waa laga qaadan karaa ama tahniyada ku saabsiisan ciidaha ilaahaga inuu dhashaan kuugu tahniyadeynaya dee ma banaana Christmas day inaad ku tahniyadaysaa ma banaana wax macsiyo uu ku jira inaad ku tahniyadayso idan tahniyadka la samaynayo ayaamaha wathaniga ama ayaamaha diimaha kale ee haystaan Christian Yahuud waxay doontaa ha ahaato ma banaana la hadiyad bixinteedaan banaanayn wala tahniyadeedaan banaanayn sida jamaahiir ulama u badan yihiin wala ku dhaqankeedaan banaanayn dhaqamada iyo diimuhu waa inay kala socnaadaan waa inaad dhaqan gaaleed ka mid noqonin qof muslima tahay mumayyiz bini aadamku wuu isgumaystaa laakiin waa inaad xor ahaataa oo diintaada aad xor ugu ahaataa waxaan ku soo koobayaa waqtigu uu kooban yahay waa inaynu kala garannaa maxaan qaadan karnaa oo dadka kale ka qaadan karnaa iyo maxayna ka qaadan karin dadku waxa anfacay imka kama qaato مثلا ساينسسكو انفع بولي ويرين ددك انت كبرتا لكن انت ضفرده خيرته اما سروالك دلدلوشته اما فيدها قاوسته اما بروكو سو خدته اما كبداده انت حمها كغداي وحمو فدودي سا لو قاتا حمه waxba waqti badan uma baahna caawad inta basbayn karaysa
أما waxa qiimaha leh waxay u baahan yihiin waqti iyo juhdi iyo dhidid idan wixii la yiri ka qaatana kama qaadano wixii la yiri ha ka qaadanina waynu ka qaadanaa waa aqli foorarka muslimiinta ku dhacay wixii la yiri soo qaatana waa diideen wixii la yiri ha ka qaadanina way ka qaadanayaan idan ayuha alahibba waxaan ku soo koobayaa maalmahan ama wathaniinimaha ku salaysnaadaan ama diimo kale ha ku salaysnaadaan maalmo muslim iyo diin islaam ku salaysan maaha sidaa awgeed in laga qayb galo sinaba uma bannaana sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam